inkastoo muwaadin kasta waajib gooni ah uu ka saaran yahay dalkiisa haddana ulama jirto axad kasta oo maanta nasiib u yeeshay inuu u dhaarto amaba hoggaan uu u noqdo dalka iyo dadka. markaynu ka hadlayno dadkeena Soomaaliyeed waxaa jira mas'uuliyiin iyo taliyaal hogaamineed oo maanta loogu fadhiyo samata bixinta dalka iyo dadka. maanta ma xuma rajada iyo idadiilada laga qabo markaad eegto qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka oo uu ugu horeeyo taliya Mahad Cabdiraxmaan, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxna sidaasi aan u leeyahay taliya Mahad. magaca ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu gaarsiiyay heer aysan weligood gaarin amaba gaari doonin. wuxuu soo kordhiyay sanadihii ugu dambeeyay kumanaan askar oo cusub. wuxuu dhisay xarooyin iyo xarumo fara badan oo tababareed, isbitaal iyo goobo kale oo muhiim ah. taliya Mahad wuxuu ballaariyay shaqooyinkii ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay qaban jireen, asigoona deegaano iyo degmooyin hor leh ka hergeliyay ciidamo asluubeed. dhowaan wuxuu ciidamo cusub tababar ugu soo xiray Koonfur Galbeed iyo Galmudug. haddaynu ku hormarno magaalada Gaalkacyo ee xarunta Galmudug, wuxuu taliyaha tababar ugu soo xiray dufcaddii ugu horreysay ee ciidanka asluubta, waxaana markii ugu horreysay ay yeelatay magaaladaasi ciidamo ka tirsan ciidanka asluubta. Baydhabo waxaa ku yaala xarunta ugu weyn ee tababarada ciidanka oo dhowaan halkaasi ka aflaxay dufcaddii ugu dambeysay. xiritaanka tababarka koowaad waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo uu ku jiray wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Xasan Cabduqaadir Maxamed, saraakiil iyo macallimiin ka tirsan ciidanka asluubta. macalinka qaybta xarunta tababarada ciidanka asluubta iyo wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada. waxaa salaan kale oo qaas ah halkan ka salaamaya saraakiilgaas taliyahayna Mahad Cabdiraxmaan aadan. intaas ka bacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh noo suurtageliyay inaan ka mid noqono ciidamada asluubta Soomaaliyeed, qaasatan waliba haddana dugsiga tababarka saraakiisha ciidanka asluubta Soomaaliyeed qaybteeda Baydhabo. ka macallin ahaan anigoo ah madaxa tababarka dugsigan jeelka cusub quruxda badan leh inaan meeshan wax ku barna aysan hore u jirin faa'iidana aan ku qabno oo ah dugsi kan oo kale in laga furay weligiisaba deegaanadan Koonfur Galbeed. waxaan rajaynaynaa inta kale deegaano ku heerarsan ama joogaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayagana in la geey doono hadduu Ilaahay yiraahdo sida rajadeena ama mustaqbalkeena uu yahay. wali fadaygan hambaliyeeyo ciidanka cusub oo geeka ka beeyda doono walaayge ku dambeeyo tababarka markii la heli kadib ciidanka asluubta Soomaaliyeed ka beeyda doono yaa horta wali la hambaliyo nagadahaani dalsho diintiyo anfacay nagada qofka markii dhalada lanka meelka markii dhalada saasa lanka doocay jaray gabartana saasa lanka doocay jaray marka geeka wali in dhalateena ciidanka asluubta Soomaaliyeed marka saasa siinka doocayaan asluubta dadka ma kasaayan inta badan hanuun mal fahansan laakiin ciidanka Soomaaliya ciidanka ka shaq badan waa asluubta. wali faday wal yar intii ana ku akhriisay buugaagtiyo iyo anu ku ogeeyana wal yar siin ku sheekay taariikhdiyo ciidanka asluubta wali ku duwayna ciidamada kale dadka iyo haqabadayaan ama bulshada lan shaqeeyo markii dambe la galo ama dambe iyo la haqabadaw ki inka badan 24 saac ay haysado koraan iyo baaran oo nidaamkii marsiyan 24 saac yaan ka badan ama 48 saac. laakiin asluubta sanadii hayas sa dambiilaha wal hadili oo maxkamadda xukuntay yalla jeena intii dil kullu ku fuliyo iyo hayas waqti fadaas gaadata wali jeena as waalideen oo awshay aadis hakaasi ilaa ku dhaqan celiyaayano unug baare ku nagadaw yahaayaan wali kale haayana dadka kale dambiilayaalka tuug lamada iyo walbaraan tuugnimada ku saaran la hormariyo si bulshada diblanka kanaga ciidamo marka oo shaqadaas inta badan qowdaas malle shaqadaas ku gudoonyiin total ciidanka Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed saraakiilgaas Mahad Cabdiraxmaan aadan ayaa soo xiray tababarka lana dardaarmay ciidanka qalin jabiyay. ammaanada ee qaranku noo dhiiban doon
qaranka muxuu noo dhiibanayaa maxaan saanaga ka samaysanna oo naloogu talagalay dhalinyaro ay aad u maqla amaanada intay ka bilaabataa shaarka iyo surwaalka aad gashanta horta hor iyo horaan kuwaan ka adkow kaniga waxaa la rabaa inuu nadaafadiisa ka adkaado dharkiisa ka adkaado dishibiliin wax la yidhaaho uu ku dhaqmo awaamiirta la siinayo mas-uuliyiintiisana uu qaato waxa askari la yidhaha meelaha uu ka bilaabanayo waay waxaad yeelaysaan xornimadu iyo soomaalinimadu wax walbay ka weynta waxaan idhi waxbaa iga yaalla wixii iga yaallay adinkaad ahaydeen xoolo kale iyo beer kale iyo aniga gaadiid iima yaalla iyo guri toona waxa iga yaalloon sheegay idinka waay da'yartaan quruxda badan waaye haddee ninkii arka sabsaaka kuma farxay yaa saaka waa lagu farxay inta uu ku sugnaa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed magaalada Baydhabo wuxuu safar shaqo iyo kormeer ku tagay deegaanka Awdiinle ee gobolka Baay waxaana safarkiisa ku wehelinayay taliyaha wasiirka amniga Koonfur Galbeed Mudane Xasan Abduqaadir Maxamed gudoomiyaha deegaan weynaha Awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay iyo xubno kale ujeedada safarka Awdiinle taliyamahad ayaa lagu sheegay inuu salka ku hayay sidii deegaankaasi iyo dadkiisa loogu sameyn lahaa ciidamo cusub oo asluub ah oo ay yeesheen iyo sidii xaro cusub loogu hergelin lahaa taliyamahad oo muddooyinkii ugu dambeeyay socdaal ku mareeyay deegaano badan oo ka mid ah dalka ayaa wado qorshooyin hor leh oo uu ku doonayo sidii laamo iyo faracyo cusub ay ku yeelan lahaayeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayna ugu qayb qaadan lahaayeen xoreynta dalka iyo samata bixinta ummadda Soomaaliyeed Serjito xarunta taliska ciidanka asluubta Muqdisho مسؤول قرش ديريو قف معقولة إنتهي وهو حمله قف مهلقوه